السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومحسنتين ومركي لبعض ما أنت هودا أن كوكولنا أربعة ياسي بحيسا قميصنا وإيسوق ليسا طبعا كبيش أي ولي نوتا لكن دتك قار كوبي طبعا كديسمبر بيش الله بيتوانا سنة كلبضا كون إيشان يلا باتنك أي أوتهاي مقالك محربا إن ندي كل ودا هول قلدا إذا مدى آيس أي تضبات كلبات كودان مقالوين كمتانا سين بول إيا مينيابوليس أي وحا لغو قبقبتي dad aad u fara badan oo Somali ay ku jirto hadda ciidamada ICE waxay sheegeen in dad 20 qof ka badan ay xireen iyadoo waliba howlgalka toddobaadkii labaad uu socdo shalay waxa la arkayay iyagoo maqaaxiyo iyo sidoo kalena xaafadda Cedar Riverside galayay waxay ciidamada ICE sheegeen 70 boqolkiiba dadka ay xireen inay yihiin dad dambiye leh gudoomiyaha gobolka Tim Wallace ayaa sidoo kale waxa uu waraaq u diray wasiirka amniga gudaha Christine Oom oo wasaaraddeeda ay ciidamada ICE hoos yimaadaan waxaana uu sheegay in ay bal faahfaahin ka soo bixiso iyo sharaxaad dadka ilaa iyo hadda la xiray oo waliba dad sharci leh ay ku jiraan muuqaalkan marka waxaan rabaa inaan idinku la wadaago shalay ayaa xaafadda Cedar Riverside ee Minneapolis ku taala waxaa laga qabtay wiil Soomaali ah oo muwaadin Mareykan ah isla markaana dhalashada Mareykanka haysto wiilkaasi magaciisa Mubashir ayuu ku soo koobay waa 20 jir waxaana shalay isagoo shaqadiisa inta ka soo baxay maqaaxi ka soo qaday isdhahaya ayay ciidamadu qabteen waliba baraf ayaa Minneapolis ka dhacay sida muuqaalkan aad ka aragtaan wuxuu yiri qoor sagaara ayay ugu qabteen jilbaha ayay dhulka ii dhigeen waana ijeebeeyeen isagoo waliba ku qaylinayay war muwaadin Mareykan ayaan ahay sidaas darteed wuxuu yiri saacad markii ay gaari igu hayeen ciidamada ICE afka ayaa u duuban gawaarida ay wataana waa gawaari oo shacab camal ah markaas kadib waxa uu yiri Bloomington ayay geeyeen saacada ayay haysteen markaas kadib ayay xaqiijiyeen inaan muwaadin ahay isla markaana way soo daayeen waliba wuxuu yiri qabow daranna waa uu daayay isla markaana sida ay ila dhaqmeen ma ahan sida loola dhaqmo muwaadiniinta Mareykanka maanta marka ayaa shir jaraa'id waxay si wada jira u wada qabteen Mubashir in maayarka ama duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo taliyaha booliska Minneapolis Brian O'Hare waxaana uu ka warbixiyay sidii ay wax ugu dhaceen iyadoo waliba markii wareysigaasi uu dhamaaday kadib wariyaasha Soomaalida oo Mubashir oo luqadda Soomaaliga aan aad u aqoonin ay su'aalo weydiiyeen isla markaana isagoo English iyo Soomaali ku hadlayay ayaa bal waxa uu ka warbixiyay qaabka loo xiray iyo sidoo kalena markii la soo daayay iyo sida ay ciidamada ICE ay ula dhaqmeen My name is Mubashir. Shala waxa joojiye ICE. Waxaan soo baxay shaqada. I came downstairs to get some food. Markaan waxay joojiyeen ICE agent. Ima weydiin wax su'aalo, no questions, no nothing. Markii he ran at me wuu joojiyey. Macala he pushed me against the wall. Hold you pushed me. Markaan he handcuffed me. Waxaan dhahay I'm a US citizen. I have my ID on my phone. Let me go. Markaan wuxuu dhahay we don't care. Markaan dibadda ii bixiyeen dragged me through the snow. Markaan ninka wuu ii pushayay. Markaan wuxuu geliyay chokehold cunuu yahay. Markaan he put me inside the car. Waxaan dhahay I have my passport. Mala saaxiib wuxuu hayay my picture of my passport. He was showing him through the car. Waxay dhahay we don't care about that. Markaan I told him okay. He said waxaa taqaanaa picture. So I told him, I can give you my name, my date of birth, and I have my passport on my phone. Can I show you? But then they said no. They turned off my phone. They turned off the location. But he did all the way in Bloomington. My first way in Cedar which way in like 1 hour. How we here for no reason. Let me show you my passport. We don't care. How sorry we went all the way to. They took me to Bloomington finally. In Bloomington, when we arrived, they made me step outside. It was snowing, and I told them, "Can I go outside? I'm cold." Okay. They said, "No, we have to stain your face." So I let them stain my face because I was cold. Well, I was handcuffed. Okay. More handcuffed to her. But he just pushed me for no reason. waxay ahayd about 2 p.m. malaha waxay weyn waa Cedar ani bas waxa doonay cunto
waxay ahayn 3 walaa waxba nothing ma odayn ice stop waxa ma odayn he came at me wuu soo baxsay wuu i pushkay for no reason wax su'aal nothing macala ma odayn ice nothing markii kugu horeysay miya aad la kulantid ice it was my first time ever how long waxay ahayn like 2 to 3 hours I would ani bes inu haa ya meesha waxa ka buuxay kuwa matataani alaabaha wala I don't know me macala if you see the video I'm not doing nothing they did that to me because I'm Somali they see that I'm different than anybody else because I'm handcuffed I can't do nothing I have my ID I'm a US citizen but they just pushed me to the ground for no reason yeah maxaa loo dhahaa ma waxaa la hadlaya maxamed nuur so uu sheegi doonaa ilaa dhigtii markii lagu geysay ilaa maxaa dareemaysaa wallahi I feel hurt I feel targeted I don't even feel safe outside because waxaa in Somalia and even though I'm a US citizen they could do this to anyone else sax maaha waxaa jira dhalinyaro sidaada oo kale oo shaqaysta school aada ay daawadeen videohii adigoo citizen runtii cunaha lagu qabtay oo lagu jir dilayay maxay tahay fariinta aad u diri lahayd dadka adigoo kale ku daawanayo oo dhalashada Mareykankana haysta Well, there's nothing you can really do. I was a US citizen. I told them I'm a US citizen. I have my passport. It's on my phone. If they're doing this to me, I feel like no one else is safe. I'm a US citizen. They can do this to anyone else. No one is going to stop them, even if you're undocumented or anything. waalidkaaga ka waran markii ay ku arkeen sida lagu galay maxay dareemeen Wallahi way naxeen. They try and find me. They want to waxay tahay downtown facility, waxay tahay downtown jail, waxay tahay St. Paul. I got finally waxay iman in Bloomington. This whole time no one knew that I got detained. Wax ku yaala office shaqada sidad. Me? Ma untay socday. Dawada waxa joogay like less than 10 seconds. maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isaguna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu sheegay muuqaalka dadka ayaa loo shiday goobta joogay wariyaasha markii la xirayay Mubashir waxa uu yiri muuqaalka aad daawateen waa Mubashir isla markaana ah muwaadin Mareykan ah waxana uu sheegay in dulashiisa inta badanba uu ku noolaa Mareykanka sidaas darteed waxa uu yiri shalay ciidamada ICE ayaa jilbaha dhulka u dhigay waana jeebeeyeen xabsi ayayna geeyeen iyadoo wax sabab ah aysan jirin arintaasina waxay xadgudub ku tahay sharciyada iyo waliba dastuurka Mareykanka qof wada iska socdo in loo xiro waxaad u egtahay Somali ayaad u egtahay arintaas waxa uu yiri waa mid sharci darro ah waxa uu sheegay in arintaasi qof kasta oo Mareykan ah ay ku dhici karto waxa uu yiri hadii aad dimuqraadi tahay iyo hadii aad Republican tahayba arintan waxa uu yiri arin lagu farxo ma ahan sidaas darteed waxa uu sheegay in arintan sidoo kale aasaasayashii Mareykanka iyo sidoo kalena dadka u ololeeya cadaaladda arintan waxa loo baahan yahay waxa la joogaa waxa uu yiri xilligii aan istaagi lahayn isla markaana aan hadli lahayn waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan su'aal iska basic ah oo caadi aan weydiiyo qof kasta oo muwaadin Mareykan ah waxana aan ka doonayaa jawaab caadi ah ma tahay qof muwaadin ah oo Mareykan ah hadii aad tahay waxa Mubashir ku dhacay adigana waa kugu dhici karaan oo Mubashir kama duwanid ayuu yiri maayarka magaalada Minneapolis waxana sidoo kale uu sheegay in ciidamadan ICE ay xadgudub ay sameynayaan sidaas darteed amarka sare oo la soo siiyay uu yahay taga Minneapolis dadka sharci darrada ah ee Soomaalida soo xirxira arintaasina waxa uu yiri arin macquul ma ahan waa una ka digay waxa uu sheegay in arintaasi ciidamada ICE iyaga nafsadahantooda waxa ay qabanayaanba aysan ogeyn hadaba maayarka magaalada Minneapolis oo shirka jaraa'id oo wiilka shalay ICE ay xireen Mubashir iyo ay joogeen taliyaha booliska Brian O'Hare isagoo ka hadlayay waxa uu yiri What you very clearly saw in that video was Mubashir
an American citizen, someone who has been here nearly his entire life, tackled, handcuffed, taken into custody for no reason at all, in clear violation of law and the Constitution of the United States, for simply walking down the street and looking like he's Somali. This should make every single person in America, whether you are a Democrat or Republican, livid. For those that believe in the work of the founding fathers, for those that believe in the maintenance and endurance of our republic, for those that want to stand up for justice, now's the time to be speaking out. Because I've got one basic question for everybody who's watching, and I'm looking for one basic answer. Are you an American citizen? If you are an American citizen, you yourself may be in the crosshairs of this administration, because in that sense, you're no different than Mubashir. This is a person that was leaving for his lunch break. This was a person who was out on the street doing literally nothing wrong. And what we saw by these ICE agents that clearly did not know what they were doing was violence and unwillingness to hear the simple truth, which he was repeating again and again, which is, I'm an American citizen. Those were the words that he was saying again and again. Those words, if nothing else, should give them a minute of pause so that they could find out, hey, who are you? What's your name? Are you a citizen or not? Have you done literally anything wrong at all other than existing in the world? The answer is, of course, no. And the reason we're here right now is, I believe, some directives were given from pretty high up that just can't be carried out. Directives like, I want you to go to Minneapolis and target the Somali community and deport a bunch of illegal or undocumented immigrants. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waarwadin la sidaa iyo nabadgelyo